kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena YouTube-ka ee ka habari qodobada wararkeena xilligan waxa ugu waaweyn madaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo u baxay safar dibadda ah haddaba wadankee ayuu ku wajahan yahay xog ku saabsan ayaa daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay doorasho maanta ka dhacday magaalada Boosaaso iyo madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo soo saartay xildhibaanadii ugu badnaa wararkeena kalena waxa kamid ah guddigii ra'iisul wasaare Roble u magacaabay arinta Garbaharey oo war cusub soo saaray si degdeg ahna ugu soo laabanaya magaalada Muqdisho haddaba maxay kala soo kulmeen Kismaayo warar ayaan idinkaga hayaa sidoo kale waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay doorashada kuraasta taala magaalada Gaalkacyo iyo xiisad dagaal oo ka taagan halkaasi qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan faahfaahin doonaa waa Sabti 5 Maaj sanadka 2022 haddaad nagu cusub tahay daawade subscribe saar YouTube-keena kadibna fura gambaleelka sidoo kale like saar muuqaalka si ay dad badan u daawadaan udiya haddaad aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reebto aan kaaga mahadcelinayaa u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaasi markale kulan wacan aan ku bilaabo warkeena madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta u ambabaxay safar dalka dibadiisa ah gaar ahaan wadanka Qatar oo ay uga bilaabatay booqasho rasmi ah qoraal kooban oo ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in booqashada madaxweyne Farmaajo ay qaadan doonto muddo 2 cisho ah isla markaana uu la kulmi doono amiirka dalka Qatar mudane Tamiim bin Mohammed Al-Thani labada dhinac ayaa ka wada hadli doono arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka soo jireenka ah iyo horumarinta iskaashiga ku qotoma is-ixtiraamka wax wada qabsiga iyo horumarinta danaha qaran ee labada dawladood iyo labada shacab ee walaalaha ah safarka madaxweynaha ayaa waxa horay u sii shaacisay warbaahinta Qatar oo sheegtay in Dooxa ay casuumaad u fidisay madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa Qatar ayaa aad u taageerta xukunka madaxweyne Farmaajo waxaana la sheegaa in si buuxda ay u doonayso in madaxweyne Farmaajo dib loogu doorto madaxweynaha Soomaaliya marar badan ayuu madaxweyne Farmaajo sidaan oo kale safaro ugu tagay dalka Qatar isagoo la kulmay amiirka iyo madaxda kale ee ugu sareysa dalkaasi mucaaradka Soomaaliya ayaa iyaguna aad u dhaliila qorshaha Qatar ee Soomaaliya oo aan u muuqan mid dhexdhexaad ah sida ay qabaan si kastaba booqashada madaxweyne Farmaajo ee Dooxa ayaa ku soo aadayso xilli xasaasi ah isla markaana lagu jiro marxalad doorasho iyada oo dawladda Qatar ay mar kale xooga saarayso sidii dib loogu dooran lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wixii ku soo kordha ujeedka safarka madaxweyne Farmaajo wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan guddiga xaqiiqo raadinta ee uu magaalada Garbaharey u magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray kulamo wada tashiyo ah oo uu ka waday magaalo xeebeedka Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Jubbaland guddiga ayaa sheegay inuu soo gabagabeeyay wada tashiyadii uu waday kuwaasi oo uu la yeeshay madaxda Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka oo ay kala hadleen doorashada Garbaharey sidoo kale guddiga ayaa shaaca ka qaaday inuu dib ugu soo laaban doono Muqdisho si uu warbixin ula wadaago ra'iisul wasaaraha kadibna ay aadi doonaan Gedo haddaba qoraalka ay soo saareen waxay ku yiraahdeen guddiga qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbaharey ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa soo gabagabeeyay wada hadaladii iyo kulamadii wada tashiga ahaa ee ay magaalada Kismaayo kula lahaayeen mas'uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland ee ay qusayso doorashada Garbaharey guddiga ayaa tan iyo Arbacadii oo ay gaareen magaalada Kismaayo waxay kulamo la yeesheen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah iyo siyaasiyiin reer Jubbaland ah gaar ahaan kuwa ay qusayso arinta deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbaharey iyagoo ka dhageystay aragtiyadooda ku aadan maareynta iyo habka ugu fudud ee ay ku dhici karto doorashadaasi guddiga qiimeynta ayaa sidoo kale kulamo wada tashi ah iyo aragti aruurin uu la yeeshay qaar ka mid ah duubabka ugaasyada salaadiinta iyo nabadoonada deegaan doorashada Garbaharey ee Jubbaland guddiga uu hogaaminayo la taliyaha dhinaca sharciga ee ra'iisul wasaare Roble Umar Maxamed Cabdulle oo loo yaqaano Dhegey ayna xubno ka yihiin qaar ka mid ah madaxda gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa la filayaa in ay ku soo noqdaan Muqdisho si ay warbixinta socdaalkooda ula wadaagaan ra'iisul wasaaraha dalka waxaana qorshuu yahay in ay sidoo kale tagaan Garbaharey si ay u dhageystaan aragtiyaha dadka deegaanka ee ku aadan qabsoomida doorashada 16 kursi oo golaha shacabka ah oo la qoondeeyay in lagu qabto magaalada Garbaharey
magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxaa maanta lagu doortay qaar ka mid ah kuraasta deegaan doorashadoodu tahay magaaladaasi. Kursigii ugu horeeyay ee Boosaaso lagu doortay maanta waa hoob 157 waxaana ku guuleystay Maxamuud Axmed Aadan Geesood. Iidle Cali Axmed ayaa isu diiwaan geliyay inuu kula tartamo murashaxa ku guuleystay. Waxaa baarlamaankii 10aad ku fadhiyay Maxamed Cabdullaahi Faarax. Cabdicasiis Maxamed Maxamuud Qambi ayaa dib ugu guuleystay kursiga hoob 227. shahaadada murashaxnimo waxaa qaadatay Muna Cali Mire balse ku guul dareysatay inay ku guuleysato waa kursigii labaad oo maanta lagu doortay magaalada Boosaaso. sidoo kale Generaal Bashiir Cabdi Maxamed Americo taliyii hore ee ciidanka booliska Soomaaliya ayaa ku guuleystay kursiga hoob 273. codeyn gacantaag ah ayuu ku helay 99 cod kadib markii ay u tanaasushay Sahro Maxamed Maxamuud. kursigan waxaa ku fadhiyay Cabdi Maxamuud Maxamed Afdhuub. Marwe Cabdi Bashiir Xaaji ayaa noqotay haweeneydii ugu horeysay ee lagu doortay Boosaaso waxayna ku guuleysatay kursiga hoob 234 kadib markii ay tanaasushay Aamina Cabdiwali Maxamed. kursigan waxaa ku fadhisay Deeqa Saciid Xasan. Muuse Axmed Ismaaciil oo helay 101 cod oo gacantaag ah ayaa dib ugu guuleystay kursiga hoob 76 kadib markii doorashada ay ka tanaasushay Faadumo Ibraahim Ismaaciil. waa xildhibaankii labaad ee dib ugu soo laabatay 16 kursi ee Boosaaso lagu doortay. kursiga hoob 169 waxaa ku guuleystay Cali Mahdi Maxamed oo helay 97 cod. waxaa kula tartantay Xafsa Cali Axmed. kursigan waxaa ku fadhiyay Jamaal Maxamed Xasan wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya oo aan ku soo bixin liiska murashaxiintii ku tartamaysay. Maxamed Bashiir Cali oo helay 95 cod oo gacantaag ah ayaa ku guuleystay kursiga hoob 83 kadib markii ay tanaasushay Aamina Maxamed Ciise. kursigan waxaa ku fadhiyay baarlamaankii 10aad Cabdullaahi Bile Nuur. sidoo kale doorashada ka dhacday Boosaaso waxaa ku soo baxay Cali Xaaji Daahir Saleebaan oo ku guuleystay kursiga hoob 220. codeyntu dhacday gacantaag ayuu ku helay 101 cod maadaama uu tanaasulay Axmed Burhaan Cumar waxaana ku fadhiyay Cabdirashiid Maxamuud Xasan. Faysal Axmed Maxamuud ayaa codeyn gacantaag ku helay 101 cod waxa uu ku guuleystay hoob 149. Faa'iza Cabdi Xakiim Maxamed ayaa markaasi u tanaasushay waxa kursigan ku fadhiyay Axmed Ismaaciil Maxamed. kursiga kale ee sumadiisu tahay hoob 158 waxaa ku soo baxay Saadaam Maxamuud Cabdi wuxuuna ku soo baxay cod gacantaaga isagoo helay 100 ergo codadkooda. Muna Maxamuud Dalmar ayaa tanaasushay ka hor codeynta. Cilmi Cumar Cilmi Caysane ayaa biishiisa ku matalay baarlamaanka 10aad ee golaha shacabka. Saciid Cali Muuse ayaa ku guuleystay kursiga hoob 27 waxa uu helay 98 cod oo gacantaag ah maadaama uu tanaasulay Cabduqaadir Jaamac Cabdi. kursigan waxaa ku fadhiyay sanadihii la soo dhaafay Saciid Xuseen Ciid oo ah wasiirka beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. waayahay wali wararka National TV ayaa daawanaysaan qeybaha hore ayaad la socotaan. Gaalkacyo haddaan eegno oo iyadana dood iyo xiisad dagaal ay ka taagan tahay magaalada Gaalkacyo gaar ahaan qaybta Galmudug waxaa ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada kuraasta taala gudaha magaaladaasi oo ah deegaan doorashada labaad ee Galmudug. guddiga siid ee Galmudug ayaa shaaciyay liiska xubnaha guddiga xulista ergada 4 kursi oo ka mid ah kuraasta taala koonfurta Gaalkacyo. guddiga la shaaciyay ayaa ka kooban halkii kursi 3 oday dhaqameed iyo 2 xubnood oo ka socota bulshada rayidka. kuraasta 4 ah ee dhawaan la qabanayo doorashadooda ayaa kala ah hoob eber hal, hoob 13, hoob 101 iyo hoob eber 17. Galmudug ayaa haatan dadaal xoogan ku bixinaysa sidii loo dardargelin lahaa qabsoomida doorashooyinka golaha shacabka oo haatan maraya meel wanaagsan. doorashooyinka baarlamaanka ee socda ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo ka hor 15 ilaa 15 bisha Maaj ee sanadkan. Soomaaliya ayaa ku daaday xaaladda kala guurka ah ee ka dhalatay muranada hareeyay doorashada oo dib u dhacday 1 sano iyo dheeraad. dhinaca kale magaalada Gaalkacyo waxaa duleedkeeda ka taagan xiisad dagaal oo salka ku haysa kursi uu markaasi madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor uu ka reebay ama ka hor istaagay taliyii hore ciidanka xoogga dalka Generaal Indha Qarshe.
xiisadan ayaa xilli kasta laga cabsi qabaa inay dagaal isku bedesho wixii ku soo kordha wararkana soo socda ayaan ku eegi doonaa warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka ee ka habari waa naga intaa iyo nabadgelyo